هذا ولا شيء ستاوي سوعانيسا waxay leedahay nolosha eeyaa ku nooliyay ayaa ku noosha gabadhaadana ma arkaysid wuxuu yidhaahay gabadhaadu maalin way ku waday weyn lacagta aan ku qaatana waxaan ka siinayaa Cabdul Shideeyo igeeyay waraaqaali iga sameeyay oo been abuur waraaqdaas oo gabadheeda ma u baahna mana rabto dawladda Sweden oo gudbiyay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو dhawaada daawada yaaridir ahaantiinba daafaca caalamka meel walba ka joogtaan halkaad nagala socotaan waa warbaahinteena caalamkeen nimcaan ilka case waxaan idin la socodsiin doonaa anigoo ah walaalkeen nimcaan ilka case insha Allah maanta waxaan rabaa inaan u doodno maamo Soomaaliyeed oo curugteeda laga afduubtay oo misne laga kaxaystay maamadan aad u jeedaan waxa idin tusayso waa dokumentiyo lagu qalday oo looga dhigay inay tahay dokumentiyo iyada loogu dacwoonayo maalmaha ka mid ah ayuu ninkii dhalay gabadheeda u yimday kadib isagoo ka qaadaya sawiraan dokumentiyada u keenaya dokumentiyada halka ay ku sugaysay kuwii iyada loogu soo dacwoon lahaa ayuu u soo dabamariyay dokumentiyaha inayna arki karin maamada sidaad warqadda uga jeedaanba maamadan oo gabadheeda uu kala wareegay ninkan aad u jeedaan oo ka soo jeeda dalka Sweden waqti xaadirkana ku sugan Sweden maamadan Soomaaliyeed dhibaato fara badan ayaa haysata wadna dareemi kartaan hooyo Soomaaliyeed iyo dhibka ay mari karto insha Allah waxaan rajeynayaa fiidiyogan inaad sii share gareyn doontaan si ay dad badan ugu doodaan xaqeeda maamada fadlan adoo mahadsan fiidiyogan la garee si ay dad badan u arkaan waa hooyo Soomaaliyeed waa hooyadaada oo kale dibna hooyo Soomaaliyeed inaanaan ogoleen wada ogahay fadlan idinkoo mahadsan sii share gareey fiidiyogan ka hadlo dhibaato ay haysato nin iskursan ay geystay kaasoo la dhahay magaciisa Absanaa Cabdullaahi kuna magac dheer Angola Hiiraan Sweden ku joogo Guuleed Maxamed Xaashi waxaan u dhalay gabar wuxuu dhahay gabadhaada waa ku wadaya markaan dhahay waayahay gabadhii oo Sweden keeyay wuxuu yidhaahay gabadhaadu maalin way ku waday weyn lacagta aan ku qaatana waxaan ka siinayaa oo yidhaahay markoo halkaas geeyay wuxuu yidhaahay farxiyo waxaa laga baahan yahay sawirkaas oo inay hooyo walba oo cunugeeda baasaboor qaadanayo oo maxay u baahan tahay gabadheeda ana gabadheeda waxay u baahan tahay ma diidi kari Cabdul Shideeyo igeeyay sawirkii laga qaaday wiilo abti u yahay dawo daray sawirkii laga qaaday waraaqaali iga sameeyay oo been abuur waraaqdaas oo gabadheeda ma u baahna mana rabto dawladda Sweden oo gudbiyay marka Soomaaliya dhibaatadii haysata waxay tahay tan maanta intay soo fadhiisatay sidaan u fikirayna HB-gayga oo shan noqoy taasoo inuu beeniga sheegayo hooyo walbana cunugeeda way jeceshahay hooyo cunugeeda saxiixayso ama waana cadeyso maanta ma jirto warqadan oo been abuurkan Cabdul Shideeyaha waa taasa waa u jeedaan anigana teeyda saxda waa taasa waa u jeedaan marka wuxuu kaloo yidhaahay macallimada iskuulkeeda wuxuu ku dhahay gabadheeda hooyadeeda aan u geenayaa macallimadii la soo hadashay ilaa 6 bilood hadal gabadhi oo ku khasabiyay wuxuu dhahay ilaa 6 bilood hooyadeeda la jooga ku dhe waxay ila joogtana malaha maxaan ku sheegaa maamadan oo hadalkeeda sii wadatay ayaa waxay inoo sheegtay sidaad wada maqlayseenba inaa cunugteeda laga afduubtay ama uu ka kaxaystay aabihii iyada dhalay uuna ka xaaraantimeeyay inay aragto gabadheeda maamadan sidoo kale waxa uu ku tilmaamay ama ay ku tilmaameen inay ku nooshahay nolosha ayda oo kale ama nolosha xayawaaniinta oo kale waxaan aad uga xumahay dhibaatada maamadan soo gaadhay bal aan dhageysana hadallada ay ku hadlayso maamadan
haddaba daawadayaal waxaan filayaa inaad maqlayseen maamada iyo hadallada ay ku hadlaysay dhibaatada loo geystay iyo cunugteeda laga afduubtay. Waxaan ka codsanayaa muslimiinta iyo soomaalidaba daafaca caalamka meel walba ay ka joogaan inay u istaagaan siday maamadan u caawin lahaayeen, siday u garab istaagi lahaayeen. Waxaan filayaa inaad aragtaan ninka sawirkiisa dunida meel walba ood ka joogtaan inaad u kacdaan maamadan oo aad u dagaalantaan xaqeeda, khaasatan dadka ku nool Sweden. Waxaan ka codsanayaa inay arrinkan fiiro gaar ah ay saaraan maamadan laga afduubtay cunugteeda. Fadlan adigoo mahadsan laagare fiiriyoogan si ay dad badan u sii arkaan looguna dagaalamo maamadan iyo cunugteeda laga afduubtay. Waa anigoo ah Nimcaan Ilka Case. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.